Bismillahirrahmanirrahim. Soo dhawaada saaxiibayaal. Halkan waxaan kusoo gudbi doonaa cashare kooban oo aan uga hadli doono mowduuc kala duwan. Hadba aan uga hadli doono wixii aan u arko in aan kala faa'iideysan karno. Marka runtii waxaan bilaabi doonaa muuqaaladaas kooban ama casharadaas kooban. Marka halkan ayaanu isku weydiisan doonaa. Aan idin bilaabo. Maanta halkan waxaan kusoo gudbi doonaa sida loo samaysto caado. Waxa afka qalaad la yiraahdo habit. Caadadu waxa weeye wax qofku uu sameeyo isagoo dareenkiisu aanu joogin, waxyaalaha ay ku fududahay adoon dareen ku bixinayn ama conscious oo maskaxdaada ayna joogin aad qaban kartid. Tusaale, markaad salaada dukanaysid oo kale, faatixada dareen kuma muujinaysid. Tusaale, hadda markii lagu dhaho aayad kamid ah Qur'aanka Kariimka oo kale, waxaa laga yaabaa inaad dareen ku bixisid. Haddii lagu yiraahdo yusiikumullahu fi awlaadikum akhri, iyo haddii lagu yiraahdo faatixada akhri, way ku kala duwan tahay. Taas dareen iyo juhdi baa ku bixinaysa si aad u gafi lahayn. Laakiin faatixadu waxay ku noqotay habit, maalin si daa'iman saad u akrinaysay waxay ku noqotay habit, wax aad kugu fudud. Marka habitku waa waxyaalahaas aan u baahnayn maskaxdaada inaad soo xaadiriso si marka caado noocaas aad u samaysatid. Cilmi baarisadu waxay sheegayaan 40 kamid ah behaviorka ama dhaqanka qofka, 40% maalinlaha waxa uu sameeyo qofku inay habitkaasi ka yihiin. Marka inaad dhaqamada noocaas yeelato waxay muhiim u tahay horumarkaaga, caafimaadkaaga, farxadaada iyo si guud noloshaada oo dhan. Tusaale, caafimaadkaaga oo kale maxay ka saacidaysaa? Tusaale, waxaad yeelatay dhaqan ah inaad samaysid subaxii socod dheer, inaad samaysid push up. Habit noocaas haddaad samaysid, caafimaadkaagii ka taxadiraysa. Waxaad samaysatay caado ah inaad hore u seexatid, horena u soo kacdid. Xilli hore seexatid, xilli horena aad soo kacdid. Waxaad samaysatay telefoonka isticmaalkiisa inaad yarayso. Waxaasoo dhan noloshaada, horumarkaaga, caafimaadkaaga ayay ka anfacaysaa. Marka dadku marka la yiraahdo maad caado samaysatid ama qof oo caadooyin leh, habit wax u joogteeya leh maad noqotid markii la dhaho, waxaa laga yaabaa inuu ku doodo inuusan hadda raqbadii iyo rabitaankii uu caado ku samaysan lahaa ama motivationkii iyo firfircoonidii uu ku bilaabi lahaa inuusan lahayn. Si arrintaas aad uga hortagtid, waxaad u baahan tahay bis in aad ku bilowdid waxyaalo aan motivation kaaga baahnayn. Tusaale, haddii maanta lagu yiraahdo course cusub baro, wax cusub baro, skill cusub baro, waxaa laga yaabaa in aysan raqbadii ama motivationkii, firfircoonidii aad ku bilaabatay aysan ku fududayn. Laakiin simple, waxaad barataa haddii lagu yiraahdo inaad 5 mar subaxii push up samayso, waa caado fudud. Waxay ku abuuraysaa kalsooni ah waxaan samayn karaa, wax inta bilaabo yaan ka dhabayn karaa. Kalsooni ah ayaa kugu abuurmaysa.
marka taasi waxay kuu fududaynaysaa in waxyaalo ka waaweyn aad ku guuleysato. marka arrinta willpowerka ama rabitaanka, awoodda rabitaanka inaad waxaan rabtid oo doonaysid iisan marna kaa hor istaagin inaad wixii bilowdo. si aad u bilowdo markaa inaad caado samaysatid, dhowr qodob ayaad u baahan tahay. dhowrkaas qodob marka maanta hal qodob ayaan casharkeenan kusoo gabagabaynaynaa. qodobkaasi muxuu yahay? waxa weeye in aad ku bilowdid si tartiiba oo yar inaad u bilowdid. start with small habits. small habits waa arrinkan hadda sheegay. waa in aad ku bilowdo caadooyin yaryar ah, yacni caadooyinka waaweyn ee awoodda u baahan, waqtiga u baahan, motivationka u baahan, rabitaanka u baahan ha ku bilaabin. kuwa yaryar ku bilow. marka caadooyinka aan motivationka u baahnayn ku bilow. inaad push up 5 mar iyo wax lamida samaysid. tusaale, markaad caado bilaabaysid markiiba waxyaalaha nafashiliya waxaa ka mid ah qofku in uu isku dayo in uu caadadaas hal maalin ku fahmo, awood badan geliyo. tusaale, push up bilow baa tiri qofkii, ama push up uu bilaabayo, waxaa laga yaabaa inuu iska soo boodo uu yiraahdo 100 waa inaan maanta sameeyo. rabitaanka marka qofka fatigue waxa la yiraahdo ku yimaado. rabitaanku waa sida muruqa maskaxda oo kale, uu daalaya. marka si aadan daalkaas u dareemin oo qofku pressure uusan u dareemin, si tartiiba ku bilow. tartiibtaas waxay keenaysaa markasta oo aad yaraysid wixii culayska aad yaraysid, waa markasta oo dhiirigelintaadu badato. waxay taas ku horseedaysaa inaad markasta soo kacdid oo caadadaas yacni aad top ku noqotid, meel fiican ka gaartid, caado kalena aad bilowdid. marka maanta waxaan kusoo gabagabeynaynaa, markaad rabtid caado inaad bilowdid ood yeelatid wax tusaale inaad qur-aanka baratid baad rabtaa. maanta markaad ku bilowdid 3 sadar 5 sadar, waxay kuu horseedaysaa bishanba inaad ka gudubtid, waad u gudubsid 10 sadar inaad u gudubtid bog. taas waxay kuu keenaysaa in aad qur-aankii xifdisid. laakiin haddaad tiraahdid maanta waa inaan hal maqra ka bilaabo, caadada haddaa bilaabaysa iska caabina imaanaysa. marka fatigue aan sheegay maanta oo dhan inaad waqtigii qur-aankii ku bixisid waxay keenaysaa daalkii aan sheegay, wixii inaad ka niyad jabtaa imaanaysa. marka ku bilow markasta small, wax yar ku bilow caado kasta aad bilaabaysid. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. wabarakatuh.